وأنت أصحابتي المنطقة حاليا لقيت ازداد تحميل قبل روحي نوجد مركب ونام دوسان بيس كل عين جاي مشروعنا أساس عتاق ويمكن ينور استاجيا أيضا نحكي كل سنة وحربين الدنيا هرمر في حنكارسي أساس درت دايم حوسمية ويلك يحتاج قلنا وكلا يوها محاني إيه صوير أو أدويلك وير ويسي يقدر كان محورا نام دوسان بيس مية نام دوسان بيس محورا يا بكاوكس حتى لكن أنا يعني ممكن تقدر كوفرا لكن تقدر وحلو موسمية ويلك ينودي سيروح يعني نودي دايم راح ويلك يسيا نفتي كمسؤولة هذا التغيير وخصبنا إن جيلك الدفاع كدمنو كتجي وحول معني ويلكيس وحول كلها عندها بابي ساتي محمر ويسير كدمنو كتجي إن جادر كان حنجي كلها دي أدرت إن ما جيل محمد وسمينا أيام محب رئيس هاد وحبه مبين كنحس كان نوكل صحبة لكن حودا وحاجتين كلان رين بنك عيني كقرب كلام جين حفيني ساتين كتالنتين كتالنين ويبحي محنادي قلب وانسى ود هدلاين قيمين تحكو دريان يوين كلام حفيني سنام دوسان تيم قرن وحجاب كسوق ينام دوسان نكر وحنار كينا مسترام وحن فيسنا برنك شركة سامبوكس وحو دايا أرمينا كتكلم مدحي سيركلي waxaan dhahayaa waan sameyn karnaa kadib waxaa masrax loo wacaya daalnay masrax markay tagto waxay dhaysaa tiknoolajiyad dad badan ay noloshooda fududeysato taqaan noloshooda way saameysaa shirkadaha kalena maysan soo saarin qalab ay wax ku arki karaan ama wax ku fahmi karaan kadib waxay tusinaysaa tijaabo ay ku muujinaysa mashruuceeda inkoo dhan way ku farxayaan laakiin wuxuu dhahay qiimeyn boqol magaaraysa kadib daalnay waxay fiirinaysaa tiimkeeda waxay soo xasuusinaysaa markay dhahayan qiimeynta waxay raa ka hormarsiin kambani injey induusaan wuxuu dhahay waxbiyaan laga bedelin sideeda aan ku dayn xasuustaa kadib daalnay waxay dhahaysaa qolkiib 9.4 waa arkaysa wuxuu dhahay marka loo fiiriyo kambani injey waa ka hooseysiin waxaa mikrofon qabsanay naam duusaan wuxuu dhahayaa haddii aan cabirkaas ka dhigna qalabkeena injey dab fara badan ma cunaayo laakiin wuxuu dhahay kambani injey masraxa yimaadaan tiimka injey masraxa imaanaya laakiin wuxuu dhahay laba kambani mashruuc ay soo saareen isdhawin saas darteed iyaga ayaa isbarbardhigayna naam duusaan wuxuu dhahay kalsoon daro ayaan dareemaya juusun wuxuu dhahayaa kombyuutarkan raamkiisa aad ayuu yariya talo ma ku shaqeyn doonaa injey asxaabta mid kamid wuxuu dhahayaa aniga barnaamijka midkaan ma ku shaqeynayo iyagan kaagoodka ma shaqeynayo marsi ayay ka dhiganayaan waxay wanaagsan dadkoo dhan waxay arkayaan inuu mashruuc shaqeynayo markay ogaadaan inay guuleysiin aad ay farxayaan naam duusaan wuxuu dhahay waan ogaa inuu shaqeynayo darteed laabta isjinayeen dadkoo dhan way ku farxayaan guushooda kadib waxaa loo wareejinaya jeeka 50 milyan sawir iska qaadan ayagoo ku farxsan guusha ay gaareen dibtiimka injeyna way sacbinayaan ninka la mastara markuu arko guushooda wuxuu soo xasuusanayaa sida mar walba qalbi uu jiimin jiray asoo fikirkaas ku jira waxaa maanis marweeyo laakiin shaaxan ku dhaysaa maan horaadada ay keentay laakiin soo maleynaya lahad xal maadan keenin wuxuu dhahay tiimka santeed mar walba waxaan ku dhijiyay barnaamijka mihirgelay laakiin hadda waxaan arkaa inay guuleysteen kale waxaan arkaynaa daalnay guriga socodka kadib waxay umaansa ayeedeeda waxay u sheegaysaa inay gacanta koowaad galeen ayeedeeduna way ku farxaysaa kadib daalnay waxay ayeedeeda ku dhaysaa ayay wajiga ilin fiican maxaad iga qarinaysaa ayeedeeda waxay ku dhaysaa waxba kaama qarinaa kadib waxaa soo baxaysa daalnay hooyadeeda daalnay markay aragto maxanaaqaysaa waxay soo gelaysaa qolkeeda waxaa kasoo dabgalaysa ayeedeeda waxay ku dhaysaa hadda intaa iskaga tagto maxaa halkan keenay ayeedeeda waxay ku dhaysaa hooyada ama waxaad u malaynaysa inay nolol fudud ku nooleed nolol adag ayay ku nooleed ama waxaad sugaysaa inay guriga ka buri kadib daalnay banaanka ay sugaayaysaa waxay arkaysaa hooyadeeda oo alaab dhaqaysa naam duusaan wuxuu imaanaya gurigiisa kasoo tagtaagsanaa wuxuu maqlayaa abiisa walaa gabadha si fiican ayay u hadashay waxaa umaleynaya inuu wiilkay shaqada ka bursaysa naam duusaan wuu farxayaa wuxuu iska dhigay mid guriga markaas soo galay wuxuu waalidiintiisa ku dhahayaa gaaja gacmaha iska soo dhaqaya kadib wuxuu soo laabanaya abiis wuxuu ku dhahayaa abi barse dadka dhexdooda looga dhexadlo abiisna hay ayuu dhahaya kadib wuxuu fahmayay inuu wiilkooda noqdo hooyadiisa waxay dhahaysaa wiilkay gabadhaas ayuu u baahan yahay waxdan waxaan arkaynaa daalnay wax xafiiska mastaraan fiirinays waxaa gadaashiisa ka hadlaya mastaraanka xajiis wuxuu ku dhahay mastaraan maaraanus ayaan waxay dhahaysaa asagana wuxuu dhahay wuu xanuunsan yahay anayn waxaan rabaa inaan hadda aada kadib waxaan arkaynaa mastaraan oo jiif waxa soo baxaysa daalnay wuuna ka qabanaya waxay ku dhahaysaa camiraada yeeshay inaa xanuunsantaa asagana wuxuu ku dhahay haa laakiin hadda waan fiixanaya iyadana waxay ku dhahaysaa maalinta maaldiinta ma taawatay asagana wuxuu ku dhahay haa waan daawaday kadib wuu hambalyeynaya iyadana waxay ku dhahaysaa waa mahadsantahay horumarkaan aan gaarno dhan adiga ayaa ka dambe asagana wuxuu ku dhahay aniga waxba idimaanan qabanay iyadana waxay ku dhahaysaa adiga haddii aadan dhiirigelinayn anaga horumarkaan ma gaarayn asagana wuxuu dhahay waa mashquulsana mar kale ayaan kusoo qabanaya iyadana haya ayay dhahaysaa wuuna ku daminaya kadib wuu soo kacay wuxuu u imaanay geedkii daalnay keenis naam duusaan biyo ayuu ku shubaya kadib waxaa loo soo diraya masiix soo dirtay daalnay waxayna ku dhahaysaa caafimaadka ilmuhuusa wanaagsan boorsh ayaa banaanka u dhigay kadib wuu soo baxaya wuuna qaadanaya annaga waxaan arkaynaa daalnay tiimkeeda oo jooga halkiisa wuxuu daalnay tiimkeeda ku dhahaya istiyo waxay rabtaa inay idin soo bandhigta lacag qiimeha 3 bilyan gaarayso sidoo kale xaruntan Silicon Valley ku taala ay istixsan mudana laga shaqeynaysaan iyadana waxay ku dhahaysaa shaqooyin niji waa si qowlkeedna soo masalan wuxuu dhahayaa iyadana waxay ku dhahaysaa si jirayaan fikirina kadibna way kala tagayaan markay baxaan ay farxayaan laabta ay nisbiinayaan kadib waxay imaanayaan xafiiskooda duusaan wuxuu dhahay magaca shirkadeeda bedelayna Josain waxay dhahaysaa markaas aan fiirino wax uu quruxda badan ee tiimkan waxay maqlayaan Samsung Tech ay qaanayaan 3 bilyan gabartiin kamid waxay dhahaysaa si ay 3 bilyan qaanayaan ma buu qalmaan aanka ninkii waxaan arkaynaa masrahan oo wali jooga xafiiska dib waxaa maanistaan waxay ku dhahaysaa wadin biximiya san wuxuu dhahay hadda ayaan bixirabay wuxuu dhahay maxaad u soo laabtay iyadana waxay ku dhahaysaa teleefankayga ayaan ka tagay dib waxay arkaysaa kaarkiisa waxay ku
kudhaysa dariiskarkan ku qoran maalin ayaan tegay asagna wuxuu ku dhahay ilaa shak miyaa kaaga jiro in xafiiska iyo dhabtaad aragtay asagna wuxuu ku dhahay mar labaad ma soo arkaysa ayaan haa ay ku dhaysa kadibna way soo wada raacayaan waxay imaanayaan xafiiska Namdusan waxayna arkaysaa boormeeshi asagna wuxuu ku dhahay shirkadeeda hor magaceeda waaye wuxuu ku dhahay midka ama xafiiska weegtiisa ku yaala dariiskiisana waa kana wuxuu ku dhahay waxaan kusoo tusay qol dariiskeena oo aan la tayn kadib markii albaab fur waxaa meesha kasoo baxay Hogson iyo Joss waxaa saaraya maxkamadda Hogson wuxuu u sheekeynayay sidii ay soo raaceen wuxuu ku dhahay aniga wadada ka socda waxaa iga dhacay bogiyada way arkaysay kadibay waxay aniga baska ayaan iska raacay iyadoo way soo dhow jiisas ayaan halkan ku imaanay waxa meesha maana juuso wuxuu dhahay idinkoo dhan waa dhantiini bacdeedu kaliya ayaa maqnay kadibay wada fariisnay qof walba wuxuu sheegay riidiisa daamin waxay dhaysaa istaxsan shaqay shirkadaas waxaan rabaa inaan kambani gooni asaasno waxay dhaysaa waxaan hayaa qorshe waxaan soo saarnaa software si ismaamulayo inay ku raacayaan waxaan bilaabayaan hirgelinta mashruucooda cusub waxay dhaysaa waxaan rabaa inaan soo saarno gaari kaligiisa socdaayo habeenkii oo dhan waxay ka shaqeynayaan qorsheynta mashruucooda cusub waxaan arkaynaa tiimka wadada Namdusan uu soo kacay wuxuu fiirsanayay wajiga daawanay marka waxaan arkaynaa Mr. maana xafiiskiisa ciidaysan wuxuu ku dhahay waxa ay rabaa inaan ku sheego Samsung Tech Company Toastio ay heshiiska saxiixan rabaan markuu maqluuq soo xarreeya dhanka waxaan arkaynaa tiimkiisa kale xafiiskooda iska joog wuxuu imaanay Mr. Han tiimku weydiinaya daana iyo Namdusan tiimkan wuxuu sheegay inay aadin Toastio Company san wuxuu dhahay warqad heshiiska koob markays ayaan waxay leedahay tus ayuu dhahay dhanka waxaan arkaynaa daana iyo Namdusan waxa uu imaanay halkaas aan soo laabno Mr. Han tiimku Mr. Han wuxuu tiimku ku dhahay ana heshiiskan baajina soo wixii daanay wax telefoonka dafaa juuso wuxuu ku dhahay maxaad u baajinaysaa san wuxuu dhahay istaxbilin maxay u bixinayaan qorshe ay ka wataan Mr. Han wuxuu dhahay mar waa inay wada shaqeeyaan naxmarta ay waxay rabaan inay injineeriin shaqo siiyaan marka Namdusan iyo daanay waxa loo soo dhiibay warqadda heshiiska Namdusan uu saxiixaya daanay way saxiixaysaa marka Mr. Han wuxuu soo qaadanaya gaarigiisa marka daanay iyo Namdusan waxay warqad sheer ku wareejinayaan halkaas wuxuu ku dhahay waxa uu la hadlay shirkadda sheerka kule waxaan arkaynaa Mr. Han oo soo socda wuxuu imaanay shirkadda Toastio daanay iyo Namdusan way soo baxayaan habeenka waxaan arkaynaa daanay iyadeedii hooyada soo fadhiyaan hooyada waxay dhahaysaa marka San Francisco aadid aniga ay hooyo ka taxdiraan marka waxaan arkaynaa Namdusan hooyadiisu diyaanay sururkii uu ku bixi lahaa hooyadiis ku dhahay hooyo inay daanay jecsiisan koogaada ayaan waxay dhahaysaa hadii imaan dhalashada imaato iyo hadii ay dhar qurux badan soo xirato waxa fariin soo diray daanay waxay ku dhahaysaa ma jiiftay asan wuxuu ku dhahay ma jiifan laakiin afar sax ayaan jiifnay hooyadiisan dharbaxsho ay ku dhuftaysaa waxay ku dhahaysaa waqtiga jiifnaysa sheeg ma ku dhahday ma gabadha waxaad kadibna wuu wacayaa dhaysaad kadibna lacag ka fikirin loo baan shaqada waa inaad diirada saarnaa wuxuu ku dhahay kubadii yareeday baagjan huu sababtaan ku sii mataqaana wuxuu dareemay inay wardii asagana soo kor ku jiro ayuu jiifanaya habeenkaas waxaan arkaynaa daanay iyadeedu oo imaanaysa daanay hooyadeeda waxay meesha imaanaysa daanay waxayna hooyadeeda ku dhahaysaa hooy maaska kirkadiisa ayaa xiran hooyadeeda maadaama gabadheeda hooy ku dhahdaada ayuu farxaysaa waxaan u toosnaysa daanay iyadeeda nus ayay ka qasaysaa kadib waxaan arkaynaa Namdusan uu sugaya daanay markay soo baxaan wuxuu iska dhigay inuu si kees soo arkay waxay ku dhahaysaa sinii soo socso dhalashada ma hasan wuxuu ku dhahay haa iyadana waxay ku dhahaysaa hadii aan wadko ka wadnasanay ayuu ku dhahayaa waxaan arkaynaa Joss oo banaan joogto waxay soo xasuusnaysaa Hogson kadib waxay imaanaysaa meel kafee luuga laba xab kafee ay soo qaadanaysaa iyadoo soo bixirto waxa kormaada Namdusan iyo daanay waxay ku dhahay maxaa laba kafee wada taayeen waxay dhahaysaa hal fari ayuu hasaas ayuu soo qaatay kadib waxa ka qaadanay Namdusan way soo waraacayaan kadib waxay arkaysaa injee oo sii socod kadibna waxay saxabtay ku dhahaysaa waa in soo laabanay waxay imaanaysaa injee waxay ku dhahaysaa miyaan bariinaysa miyaan injee waxay ku dhahaysaa waxyaabo aan rabay inaan dhimo badho daanay waxay dhahaysaa wajiga wuxuu eegay mid maseersan kadib waxa meesha maana halkaas daanay waxay ku dhahaysaa maxaa jiro dhanka waxaan arkaynaa Joss iyo Namdusan Joss waxay Namdusan ku dhahaysaa heshiiska farkiisa la garan dhibaato ayaa idin kaga imaan karta kadib markuu wiishka furan waxay arkayaan xafiiskooda oo la buuxo kadib waxay imaanayaan xafiiskooda waxay meesha ku arkayaan halkaas iyo tiimkiisa oo joodaanay wuxuu weydiinaya wax meesha ka dhacay dhanka waxaan arkaynaa Mr. Han waxa uu imaanaya gacan yariisa halkaas loo qof ayuu watay saddex qof nuuray kadib Mr. Han uu soo cararaya Namdusan wuxuu halkaas ku dhahay ujeedku wuxuu ahaa inay dhamaanteen nabad wado Namdusan wuxuu dhahay heshiis waan kansalayna lacagtaan ku soo celinayna halkaas wuxuu dhahay lacagtaan idin siin loo jibaarkeeda ayaan idin ka rabnaa dhanka injii waxay saxabteed ku dhahaysaa gruub kalsoon aniga ayaa shaqsiinaya halkaas uu soo baxay waxa kormaana Mr. Han halkaas wuxuu Mr. Han ku dhahayaa heshiiskan kansalayna ay leeyihiin manal kansal kale ee dadka suulhada adiga ay asxaabtii muuna ka tagayaa wuxuu ku dhahayaa Mr. Han uu saxsanaa Namdusan wuxuu ku dhahayaa maxaad waxaad soo samaysay wuxuu ku dhahay ninkaas walaalkayga ayuu hadal qaldan dhahay walaalkayga inuu duxnayo qaaday uu isdilay tiimka oo dhan way naxayaan waxa meesha maana Mr. Han wuxuu tiimku dhahay heshiiska u dhaca wax kasta oo ka qasbantii ilaynkooda idinka diyaar u ahaa Toastio wax qiimeynaya ma siin kaliya waxay rabtay barnaamijkii Nangil kadib uu ka tagay Namdusan uu ka tawgalay wuxuu ku dhahay maxaad hadalkaas noo leedahay ma waxaad rabtaa inaad qalbiga naga jabisid wuxuu ku dhahay hadalkan idin hadii uu qalbiga ka jawaab koodib ganacsi kuma fiicneen kadibna way isdagaalayaan anta tiimkiisa ka Joss waxay dhahaysaa in dacwo gudbisan waayo laakiin waqti badan ay qaadanaysaa wuxuu dhahay Mr. Han hadalkiisna maqnay kadib Joss uu soo baxay waxaan arkaysaa injee waxay nimaanka xafiiska daanay waxna ka fiirinaysaa daaqada dhanka waxaan arkaynaa Mr. Han iyo Namdusan dagaalmaya meedaalaya Mr. Han wuxuu Namdusan ku dhahayaa heshiiska wuxuu lacag badan oo ka soo xareyn kartaa laakiin asxaabta ay ku kala fogaanayaan Namdusan wuxuu ku dhahayaa naxaa barnaamijkan
kadib waxaa sameyn daani ayadii darteed goordhamin dhoola ayna qarabta ayna caawin marka habeenkii waxaan arkay daani ayadii oo wax arkida masiraan kor ay ku arkay wuxuu soo xasuusnaa daani ku dhaay mashruucan ilmaha mid sii socon doono daani ayadii beerkasa wax ku dhaysan maxay jiyo ku tacsan wuxuu dhaay qof ayaan isdagaalnay wuxuu ku dhaay qof fiican min ganacsigiisa kaliya ka fikirayana kadibna laabta ayuu gelinaya waraalgelinaya marka wuxuu soo safray waxa arkay Josaaban uu soo fariisinaysa waxay ku dhaysaa xashiiskan gurigiisa fursad ay ku tahay riidada meeyaga san wuxuu dhahay hadii aad riidaydan ku jiro uma baahni daani oo guriga soo socdo waxay arkaysaa mastaraan oo guriga soo baxa asagna wuxuu ku dhahay mar weerar naqo kadaytay naameen nasis daani xiraysa waxa soo iska xaalkii waxa soo raacaya maqaaxi saraan wuxuu ku dhahay kambanida twistiyo malagaadkan kala adu weyn yahay ka guuleysan kara xitaa waa inaad shil noqotaan kan waxaan arkay namdusan oo fiirna sawirkiisa iyo Mr. Bag wuxuu xasuustay markii Mr. Bag uu saxiixay banooniga uu ku dhahay riidada waa inaad raactaa wana guuleysanaysaa soo tagtay daani waxay fiilis banooniga namdusan siinay ka soo waxaan arkay daani oo siyaasay waxay soo qaysay banooniga namdusan siinay waxaan soo haysa guri namdusan markuu arkay wuxuu ku dhahay maxaad halkaan qabanaysaa ayeen wuxuu ku dhahay maxay wajii kaaga dhacay sababta wuxuu ku dhahay waan dhacayeen wuxuu ku dhahay Mr. marka niyo istagashan kadibna wuxuu ku dhahay samaanta rashadada ay ahayd asan wuxuu dhahay waan hilmaamay dibna bas ay soo wada raacayaan waxay imaanayaan maqaaxi daani waxay namdusan ku dhahay adiga lagu aqoonaya banaanka maanta hadda waa soo baxday dib baa isku dhigin sababta waxna qeyb uu ka tagay ayadna ka imaan asagana wuxuu ku dhahay hadii aad buskay taagnaanayd jiray teamka oo dhan ma ka tagi lahayd sidoo kale hadii aan ka badnaan lahaa waan bixi lahaa hadii intii namdusankii waraqada ay soo qorjiray waxaan siinaysaa banoonigiisa asagana wuxuu ku dhahay waxaad rabtaa inaan ka tagno iyadana wuxuu ku dhahay mar walba kuma jir kana riyabeen asagana wuxuu ku dhahay maanta doorshadayda ayeen waxaad u imaatay inaa intaas oo kaliya hadii sheegto iyadana iyadoo ay kasoo tagaysa waxaan imaanaysaa meesha basaska uu sugo marka namdusan uu soo baxay wuxuu imaanay xafiiskiisa wuxuu arkay Juuso oo saqafka saaran wuxuu maleynaa inuu istiro uu soo xarreeya ku dhahay maxaad isku dilaysaa Juuso wuxuu dhahay isma dilin kafee ay dhacayaan fiirinayay namdusan wuxuu Juuso sheegay sidii daani inay kala harayaan namdusan wuxuu Juuso ku dhahay shaqadii hore aad kasoo tagaysay waxaad dhahay ma xasuustaa waalidina waalidi waay waxaasna dib u laabto ma rabtaa Juuso wuxuu dhahay aniga waa ogahay sababta ma rabtaa in dib u laabto Juuso wuxuu ku dhahay twistio lacag darteedna oo birmiya umraysa masra marwina daciifnimadeena arko xasuustaa maalku maalinta noodiday rekoorku ka leeyahay rekoorkaas wuxuu ahaa arrimaha walaalkayga waxaan ogaanaa waraaqda arkoska qornid inuu qoray Juuso wuxuu namdusan ku dhahay walaalkay markuu dambeysay wuxuu rabay inuu riidis rumay anaga waxaan rabaa inaan riidis rumay doosaan uga caawiyo mariyo wax biska ku jirto xalmaan sinjee waxaan ku dhahay arrin muhiim ah rabaa inaan ku sheego kala waxaan arkay tiimka alaabtooda qaanaha wuxuu Joosahay ku dhahay soo xiriirkana ayaan waxaan ku dhahay salon baan tiim kale waxay ku dhahay nasiib waxaan weyn ka tagaysaa dib wuxuu asxaabta kala weynaa sawirka ay wada jir ku galayeen oo intii iyagana waxay ku dhahay ma aragnin ka daani oo fiirnis door yaris bifo saaran waxa maanis mariyo waxaan ku dhahay waxaan ku gudbi bifo saaran adii tahay daani waxay dhahay ku sheeg mariyo waxay dhahay sanjee ay sheegtay hadal oo kale lagu wadaga yaabaa codsi Soomaaliyeed waxay ku dhahay ku sheegay mariyo waxay dhahay baaga ay sheegay mariyo waxay ku dhahay xitaa dowladda duunada ay u jeceshahay daani waxay galaysaa xasuus markay yaabay ku dhahay waxaan rabaa dowladda duwan ku saakay daani waxay mariyo ku dhahay waa marsantahay maadaama ay soo xasuusay daani way soo baxaysaa waxay imaanaysaa xafiiskooda oo laga kala tagay inta Joosahay waxa fiidiyoo soo diray wuxuu ku dhahay dad waqtigiis muuqaalkayga la daawayeen way qoslaysaa dadkaas waxay namdusan wuxuu imaanaya halkaas wuxuu ku dhahay waxaan rabaa inaan wax ka codsado kadibna gudaha xafiiska ay soo galayaan namdusan wuxuu ku arkay Mr. kasna wuxuu dhahay laga soo maleen hal mawduuc ay u imaateen xogaa kadib waxaan arkay namdusan iyo asxaabtiisa ku jaan San Francisco marka Joosahay idinka waxay daanaysaa muuqaalka uu soo diray Hongson kaleeto Mr. wuxuu imaanaya xafiiska ay lahaan jireen tiimka Samsung Tech anin waxay imaanaysaa NJ tiimkeeda NJ wuxuu ku dhahay maxaan ku keenay iyaduna waxay ku dhahay interview ayaa rabaa inay qadin shaqayaan u baahanahay waxaan rabaa qaybta qorshayaashina oo qaabilsanaada company NJ waxay ku dhahay maxaad u rabtaa inaad company-ga u shaqeysay namdusan wuxuu aqoonsiga ku daray kaniiniyaasha ay daani u soo diray si uu u aqoonsado NJ ma ka ogolaan doontaa inay daani shaqsiis waxaan ku ogaanay xalqad soo socota kuma santahay daawashada waa in xalqad xigta laga dhaxsiiyaa bye bye